السلام عليكم maanta waxaan duubi doonaa haddii la yiraahdo waxa la yiraahdo Internet of Things IoT waxaa loo soo gaabiyaa mar walba Internet of Things waxaa loo adeegsadaa device walba qof walba meel walba business walba network walba iyo xilli walba macna ahaan waa in shay walba oo maanta dunida yaalo laga dhigaa shay smart ah oo ku xiran internetka si loogu maamulo meelo kala duwan iyadoo lagu xirayo wax loo yaqaan sensors ama dareemayaal kuwaas oo mar walba sheegayo shayga inuu haaf yahay inuu buuxo inuu wax ka dhiman yihiin adigoo meel fog joogina amri kartid iyo wixii la mid ah maanta waxaan maqalnaa wax la yiraahdo IoT marka IoT waxaa loo adeegsadaa waa automationka waxyaabaha automatic ah tusaale ahaan oo kale maanta waxaa ku yaala xaafadda fridge ama qaboojiyahaas waxaa kugu jiro shayyaal badan oo sida cuntooyinka waxyaabo kala duwan ah marka walba oo shayyaas ay dhammaan rabaan waxaad kala socon kartaa mobilkaaga adigoo kala xiriirayo fridge-ka ama qaboojiyaha mobilkaaga wuxuu kuu sheegayaa wax ka maqan waxa amaanta soo gadaysid iyo wax kugu yaalo sidoo kale waxaa loo sameeyaa home automation wax la yiraahdo oo gurigaaga inaad si automatic ah aad maamuli kartid adigoo daaqadaha xiraya albaabada xiraya kaamirada banaanka kala soconaya ruuxadihii ka daminaya nalalkii ka daminayo adigoo adeegsanaya mobilkaaga waxyaabahaas dhan marka waxaa loo yaqaanaa in IoT ama Internet of Things mar walba marka wax walba oo maanta yaala dunida waxaa u socotaa in laga dhigo wax la yiraahdo wax ku shaqeeya teknolojiyada la yiraahdo IoT marka basically wuxuu aad ugu baahan yahay wax loo yaqaan sensorska ama dareemayaasha kuwaasoo mar walba waxaan aragnaa marka qaar nalalka marka meelaha qaar aad gashid nalalkii automatic shido markii aad dhaaftid inuu damo ma ahan wax la soo koobi kara maanta teknolojiyada inay aad iyo aad u horumartay waxaana horumarsiyay wax loo yaqaano Internet of Things taasoo macnaheedu yahay shay walba oo maanta yaalo in uu noqdo shay ku xiran internetka kaasoo xogtiisa iyo warbixintiisa laga heli karo meel walba oo qofkii uu joogo tusaalaha ugu weyn ee loo soo qaadan karo IoT wuxuu noqonayaa in kombiyuutaradii iyo device-yadii ay isku xiran yihiin kuwaasoo meel walba oo dunida ka mid ah laga maamuli karo xog laga heli karo dad lagala socon karo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in qofka bini'aadamka oo kale lagu xiri karo wax la yiraahdo GPS kaasoo lagu maamuli karo lagula socon karo xogtiisa dhaqdhaqaaqiisa mararka qaarna codadkiisa iyo wixii la mid ah haddii si gaar ah aan u qeexno marka IoT waxaa la yiraahdaa waa isku xirka device-ya kuwaasoo la iskula xirayo dareemayaal ama sensors kuwaasoo ah network kuwaasoo isku xiran kuwaasoo mar walba xogtooda meel gooni ah ama meel khaas ah lagala xiriirayo waxyaabahaas oo kale waxaa ka mid ah kombiyuutaradii waxaa ka mid ah printeradii waxaa ka mid ah kaamirooyinkii waxaa soo galaya wax loo yaqaan baabuurtii waxaa soo galaya fridge-yadii ama qaboojiyaashii waxaa soo galaya saacadihii waxaa soo galaya geymamkii wax walba oo maanta dunida yaalo oo si automatic ah loo maamulo waxaa loo yaqaanaa IoT ama Internet of Things waxaa jira dunida maanta systemya ku shaqeeya wax la yiraahdo IoT ama artificial intelligence AI kuwaasoo qofka marka hore lagu xiraayo wuxuu aruurinayaa qofka xogtiisa si maalinle ah markuu aruuriyo muddo isbuuc ah wuxuu sameynayaa marka isbuucii dambe inuu qofkii kula dhaqmo shaqadii isbuucii hore uu qabtay sababtoo wuxuu si qiyaas qaadanayaa marka hore wuxuu aruurinayaa xogtaadii wuxuu analyze gareynayaa xogtaadii kadib wuxuu kula dhaqmayaa in xogtii isbuucii hore in xog la mid ah aad sameyn kartid isbuucii la soo dhaaf marka dunida maanta waxay u socotaa wax loo yaqaan IoT ama automation waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qofka maanta hadda social media intiisa badan waxaa aragnaa qofka maanta wuxuu google gareynayaa barnaamij uu raadinayo ama software ama program uu raadinayo uu soo baxay wuxuu imaanayaa Instagramkiisa ama Facebookkiisa kadib wuxuu arkayaa shay uu la xayeysiinayo ama koorsadii uu la xayeysiinayo sababtoo ah maxay shirkadda iskala softwarekaas waxay aad iyo aad ugu baahan tahay in ay isu geyso dadka marketka jooga productigooda inay u geyso dadka customerska ah dadso ayaga waxay ku sameynayaan marka xayeysiintaas lagugu soo aad inta laga keenay wixii aad raadisay waa sababtoo maxay waxaa la isticmaalayaa xogtaada si qofkii u baahnaa hadhow kale lagugu soo aadiyo waana waxa maanta dunida la isku haysto oo ah daatada inay tahay waxa ugu muhiimsan ee maanta dunida yaalo dunida maanta waxay u guurtay xagga smartiga smart macnaheedu waa maxay in shay walba laga dhigo wax qurxoon kaasoo ku shaqeeyo internetka kaasoo available ah kaasoo mar walbana la heli karo waxyaabaha smartiga waxaa ka mid ah waxaa jira smart glass la yiraahdo oo kiyaalayaal smart ah saacada waxaa jira watch smart ah kaasoo kombiyuutarkaaga iyo mobilkaaga aad ku xiran kartid shaatiyaal smart ayaa jiro
oo qaarkood dareemayaal oo kuleylka iyo qabowga wax walba kuu sheegi karo. Waxaa jira ilmaha carruurta oo kale in boorsooyinkooda kale lagu xiraayo waxa la yiraahdo GPRS oo lagula soconayo location-kooda haddii ay meesha ay dunida ka joogaan mar walba iskuulka aadayaan. Waxaan looga hortagayaa in carruurtii la xado ama la dhibaateeyo. Waxaa jiro Bluetooth cage tracker waxa la yiraahdo. Waxaa jiro kabo smart shoes qaarkood waxaa lagu xiraa GPRS carruurta oo kale ama dadka waaweyn ama dadka xanuunsanaya ayaa lagula xiraa. Waxaa jiro socks ama sigsaano oo smart ah. Waxaa jiro pants smart ah, suuman smart ah. Waxaa jiro waxa la yiraahdo smart belt. Waxaa jiro ring ama faraanti smart ah. Qaarkood camera waaye, qaarkood audio waaye, wax baa lagu duubaa. Smart finger jiro, smart waxaa jiro bracelet iyo wax la mid ah. Marka dunida maanta waxay aad iyo aad u danaynaysaa in shay walba maanta laga dhigo smart. Qof walba maanta hadlaayo waxaa awood loo leeyahay in xogtiisa la ogaado, la duubo, lala socdo iyadoo loo adeegsanayo device kala duwan oo isticmaalayo. Marka maanta ma jiro device aad isku halayn kartid kaasoo agtiisa aad ku sheekaysan. Sidaas daraadeed ma ahan IoT wax lagu soo koobi karo hal video iyo wax la mid ah. Waa maado si qaas ah loo barto takhasuskeeda leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.